soo dhawaada warbixin cusub waxaad ka daawanaysaan channelka Salma Vlog and Entertainment. warbixinno iyo waliba waxyaabaan isleenahay daawadayaasha waa ay ku qanci karaan ayaana la wadaagayna. waxaana markan idiin haynaa warbixin intiina badan ay cibro qaadasho idin noqon doonto marka aad maqashaan. qisadan xanuunka badan ayaa ku dhacday wiil Soomaaliyeed. 4 sano ayay xiriir lahaayeen gabar oo ay isxodxodanayeen. muddada shukaansigooda waxay ku ballameen inay soo gabagabeeyaan oo ay guriga leelaan weliba mid xalaala oo Ilaahay raalli ka yahay. markii ay aqal galeen 4 habeen kadib ayuu xaaskiisii ku arkay waxyaabo uusan hore ugu arki jirin. qalbiga ayaa i xanuunay markaan qisadiisa wiilkan maqlay, waxaana dareemay inay ka maqan tahay farxad iyo nolol ay xaq u lahaayeen inay helaan lamaane nolosha ku midoobay. bal aan idinla wadaago. wiilkan wuxuu guursaday gabar uu aad u jeclaa muddo 4 sano iyo dheeraada. wuxuu hadalkiisa ku bilaabay arrin mucjiso lahayd. wuxuu yidhi, habeenkii ugu horraysay ee aqalgalkeenna oo ah habeenka nolosha ay ka bilaabato uuna ku soo gaaray jacayl iyo xiiso ay labadooda isu qabeen, waa wiilkii iyo gabadha isdoortay. ayay mar keliya i tidhi, xaaskayga ha ii soo dhowaanin haddaad alle iyo rasuulkiisa taqaan, iyadoo indhacadow igu fiirinaysa. wuxuu yidhi, waxaa isuu kaydarsamay salal iyo argagax. mar keliya ayaan idhi, xabiibtii maxaa ku helay? balse jawaab iimaysan celinin. xaaskaygii waxay qaadatay bustihii oo ay dhigatay dhulka, qaybta sariirtana waa ay ka dhigtay, iyadoo aad u hin raagaysa, islamarkaana riinka ka baxaya uu ahaa mid ciilkaambi ku jiray, balse uusan hadal jirin oo shib ah. habeenka wuxuu ii noqday habeen imtixaana, ayuu yidhi wiilka qisada ka warramaya. wuxuu ii ahaa mid lama filaana. subaxii markii uu waaga baryey ayaan reerkoodii isugu wacay, waxaana uga sheekeeyey sida ay wax u dhaceen habeenkaas. waxay dhaheen waa jin oo qur'aan ayaa lagu akhrinayaa. maalintii oo dhan waa la qur'aan saarayay. nasiib wanaag way ka soo qabowday sidii hore. ilaahay amarkii maalinta qur'aankii wuxuu soo celiyey xiskeedii oo waxaan helay xaaskaygii aan nolosha inaan ku midowno muddada u hanqaltaagaynay. saddex habeen oo dambe ayay caadi ahayd, balse xaaskaygii maalintii 4aad waxay ahayd qof waalan oo xiskeedu maqan yahay. ilaa xilligaas wuxuu sheegay wiilkan xaaskiisu inay ka waalan tahay. sidaas ay tahay kama tegin oo waxa aan la noolahay sannadkii 3aad. waxay ii dhashay wiil caafimaad qaba. xaaskayga maalinta oo dhan waxay ku xidhan tahay aqalka gudihiisa, hooyadeyd ayaana la joogta. habeenkana aniga ayaa xanaaneeya. shalay markay caafimaadka qabtay waxaan halkii sac gudaheed odhan jiray 100 jeer, xabiibtii waan ku jecelahay. ilaahay mar ha isku kaanna simo innagoo caafimaad qabna. markaan maanta helay jacaylkaygii, hadday natiijadiisii sidaan noqotay, waan guddoomay, waan ku samray oo waxaan aaminay qadarta alle, waayo waxaan ahay qof islaama oo haddana iimaan leh. kuna darso oo waxaan mar kasta idhaahdaa gacalayso waan ku jecelahay. waxaan leeyahay ilaahay ha ku caafiyo. xaaskayga ayaa tahay, kaamana fogaanayo. waxaa tahay qof mas-uula oo naxariis badan. maanta way adag tahay sidii lagu heli lahaa qof waalan inuu qof la noolaado oo nolosha ay wadaagaan. daawade, maxaa kaaga baxay qisadan wiilkan Soomaaliyeed ku dhacday ee xaaskiisa 4 habeen oo ay wada joogeen ka waalatay, ama uu miirkeeda doorsoomay oo qof maskaxiyan caafimaad qaba aysan ahayn? wiilow ama gabaray, haddii arrintan oo kale kugu dhici lahayd maxaad samayn lahayd? bal kommentiga
fariintaada noogu reeb. waa anigu xasan xayi cabdulaahi oo idinkaga tegaya sidaasiyo kulan dambe oo xiiso leh.